السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan qadi labaad ee taxneena Andalus. haddaba haddii aad la socon xalqadii koowaad waxaad dib uga daawan kartaa barteena YouTube-ka. ku soo dhawo mar labaad taxneena Andalus. dhulkii Andalus loo yaqaanay maanta waa labada dowladood ee Isbaaniya iyo Portugal, ama waxa lagu magacaabo Jasiiradaha Iberia. cabirka isugeynta labada dowladood waa 600,000 oo kiiloomitir, taasoo macnaheedu yahay inay ka yihiin xataa 3 meelood oo meel dhulka Masar. waxaana Andalus iyo Morocco kala qaybiya biyo-mareen kaasoo imika lagu magacaabo biyo-mareenka Jabal Tariq. waxaana magacan loo bixiyay biyo-mareenka markay islaamku furteen Andalus iyadoo lagu sharfay halyeegii furtay Andalus. waxaana u dhaxeeya magaalada Sabta iyo Jabal Tariq in lagu qiyaaso 12.8 kiiloomitir. waxay dhacdaa Jasiiradaha Iberia koonfur galbeed Yurub. waxay u dhuuban tahay xagga bariga, taasoo macnaheedu yahay mar walba xagga bariga u shaqaaqdo waxa soo yaraan doona balaca dhulka. waxayna u ballaaran tahay xagga galbeedka, taasoo macnaheedu yahay waxa sii ballaaran doona balaca dhulka mar walba u sii socoto xagga galbeedka. waxayna xuduud leedahay dhinaca waqooyiga dhulka Faransa ama dowladda Faransa, waxaana isku xidha silsiladda buuraleyda ee Bartat. haddaba dhinaca waqooyi mooye inta kale waxa kaga wareegsan biyo. badda Mediterranean-ka waxay kaga hareeraysan tahay bariga iyo koonfur bari, halka badweynta Atlantic-kuna ay kaga hareeraysan tahay waqooyiga galbeedka iyo sidoo kale koonfur galbeedba. taasoo macnaheedu yahay buuraha Bartat ayaa dhulkan ku xeeriya Yurubta kale. haddaba buurahan ayaa waxay u qaabisay ama ka dhigayaan dhulkan mid u jahaysan ama xeedha leh qaaradda Afrika. sidoo kale dhirta iyo cimilada iyo xayawaanku waxay shabahaan kuwa ka jira waqooyiga Afrika. waa sababta keentay in culimada juqraafiga gaar ahaan kuwa Islaamku ay Andalus ku daraan qaaradda Afrika, taasoo macnaheedu yahay Andalus Afrikaan baa leh ee Yurubiya ma leh. sidoo kale labada gobol ee Sabta iyo Danja ayay culimadu si sheegeen inay aad u shabahaan waqooyiga Afrika. jawaabteeduna waxay tahay in dhulkan ay waagii hore degnaan jireen qabiilo Badawa kuwaasoo ka soo haajiray waqooyiga Scandinavian-ka, Sweden, Denmark iyo Norway, waxaana soo degeen dhulkan. haddii aad garanayn qaabkay ku soo degeen waxaan kaga soo hadalnay xalqadii koowaad ee Faldan ku laabo oo soo daabo. haddaba waxay noqosay waxay tahay in qabiilada loo odhan jiray qabiilada Vandal, sidaa daraadeed ayaa dhulkii loogu magac daray iyaga oo waxa loo bixiyay dhulka Vandalisia. laakiin isbeddelka waqtiga ayuu magaciina isla bedelay, waxaanu isu bedelay magacii Andalusia, halkaasoo ka dhashay magaca Andalus. dadka qaar ayaa aaminsan carabtu u bixisay magaca markay qabsadeen dhulkan, laakiin waxa ka jira ma jiraan. sidaasay ugu yimaadeen, isagoo sidii ahna waa laga saaray carabta dhulkii. haddaba qabiiladan ayaa ahaa qaar dhib badan oo aan ilbaxnimo lahayn. haddaynu magacooda dib ugu laabano, Vandal waxa uu af-Ingiriisi la macno yahay jaahilnimo, dib u dhac, ilbaxnimo la'aan iyo bahalnimo. laakiin qabiiladan waxaa laga saaray Andalus ugu dambeyntii, waxaana la wareegay qabiilo kale oo Kristaan ahaa, waana kuwii loo yaqaanay Gotiska ama Goodka galbeed. iyagana Andalus gacanta ku hayay ilaa intii Islaamku soo galayay.